بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وناسن داوديال halkan warbaahinta Kaahiye Media ku soo dhawaada Kaahiye Media waxaan halkan kugu soo gudbinaa wararka iyo dhacdooyinka degdega ah ee soo kordha markan dawladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn shaacaysiin haweeney ismiidaamisay isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir iyagoo intaas ku daray haweeneyda inay ahayd ruux aragala kadib war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaana arrimahan lagu shaaciyado intaas lagu daray in guud ahaanba haweeneyda isqarxisay aragala waxaana ay war-saxaafadeedkan ku soo aaday kadib 16 maalintii qaraxaasi u dhacay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaana u qornaa sidan wasaaradda amniga gudaha oo tixraacaysa warbixin baariseed oo hordhaca oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya kuna saabsan qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar 24 bishii 7 ee dhaaftay 2019 waxay wasaaradda amnigu la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed sidan soo socota ugu horreyn dawladda Soomaaliya waxay taasi u diraysaa intii ku dhimatay sidoo kalena caafimaad degdeg waxay u rajeynaysaa intii ku dhaawacantay falkii foosha xumaa ee ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar dawladda Soomaaliya ayaa cadeynaysa in falkaasi uu ahaa dhibaato loo geystay shacabka Soomaaliyeed baaritaan hordhac oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ayaa lagu ogaaday in ay isqarxisay ruux nafteed haligta ah oo dumar ah kana shaqeynaysa dawladda hoose ee Xamar iyada oo kaalmo ka helaysay ruux kale oo dumar ah oo sida la sheegay ku qorneed kaaliye shaqaalana ka ah xarunta dawladda hoose labada gabdhood ayaa baaritaan ku cadeeyay in aan la dhameystirin hubintii loo baahnaa markii la shaqaaleysiinay sida lagu ogaaday baaritaankooda labada gabdhood ayaa fasaxyay isku dhow oo bil gudaheeda wada qaatay iyadoo xogta qaarna ay tilmaamaysa ayaa la yiri in ay tageen goobo iyo maamulaan xarakada al-shabaab nafteed haligtada ayaa si qaldan ugu tagrifashay cadiifadii ay u hayeen madaxda iyo sidoo kale dadka ay la shaqeynaysay maadaama ay kamid ahayd dadka baahiyaha gaarka ah qaba ugu dambeyntii waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa mar labaad in falkaasi uu ahaa mid falxuma oo ka dhacay xarunta dawladda hoose isla markaana loo soo qabqabtay dad lagu toonsan yahay inay ku lug lahaayeen kuna lug yeelan karaan falkii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar si kastaba waxaa la isweydiinayaa ilaa yaatan qaraxa sida u dhacay cidda fududeysay iyadoo tan hordhac u noqonaysa baaritaano kale oo ay ballan qaaday inay soo saari doonto wasaaradda amniga iyo dadka laamaha amniga ee ku shaqada leh arrimahan صاحبيال waad ku maasantahay daawashada channelkan hadii aad ku cusub tahay mogaan inaad saarto subscribe inaad gambalaalka furato si aad u noqoto kan ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada Kaahiye Media waad ku maasantahay daawashadaada tan iyo kulan dambana nabadgelyo